Asalaamu calaykum sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay halkan waxaa degnaa gabadh iyo hooyadeed iyo aabaheed. Gabadha waxay ahayd mid hooyadeed inta ay la joogto u shaqaysa oo wax walbana u qabata. Islaantuna aad bay ugu farxi jirtay gabadheer inay wax walba u qabanayso. Si ay soo jeedoonana hooyadeed way caawin jirtay wax walbana way qabanaysay. Hooyadeedna waxay ahayd mid siisa cunto fiican oo waxyaabo fara badan oo qabata. Gabadheer markii hooyadeed jiibsato ayaa wixii intaa ka dambaysa wax fara badan ayay akhrinaysay siday u noqoto qof wax garanaya. Iskuulkana waxay tagi jirtay iyadoo hooyadeed sii ogaatay waxa haya iyo waxa ku dhaca. Maalmaha qaar hooyadeed ma ahayn mid hurdada ka kacda waayo waxa ku geyi jirtay xasaasiyad. Markay ku tiraahdo hooyo iskuulka magaaga joogaa oo anigu wax walba aan kuu qabtay waxay ku oran jirtay may uma baahni waan kici karaa waan caafimaadaya. Orod iska soco yaanan ku jeedine. Gabadhuna waayay ay ku oran jirtay waxayna iska tagi jirtay iskuulkayga. Iskuulkayga waxay ku lahayd arday fara badan oo aad u aaminsanaa waayo ardaydooda oo dhan waxay jeclaayeen iyaduna waxay ka mid ahayd ardayda la wada jecel yahay. Iyadoo ku jirta xiisada ayaa markii dambe hooyadeed ayaa soo garaacday. Gabadhii hoos ahaanba lala hadasho waxay ku tiri hooyo maxaa kugu dhacay. Islaantii waxay ku tiri hooyo qada iyo waxaan kariyey ma jirtay markii aad soo socotid soo iibso cunto. Gabadhii markay maqashay hadalka hooyadeedoo bedelan ayaa way ka werwertay. Markaasay ku tiri islaantii waxba aniga iga werwerin ee qadadaada soo qaado sidaanad u gaajoon mana kici karaya maanta. Gabadhii waxay ku tiri hooyo waan soo fasax qaadanaya si degdegna waan ku imanaya ee isug aniga ayaa ka soo fasax qaadanaya. Gabdhihii ayaa markii dambe iyadoo fikirisay ku yidhaahdeen hablaayo maxaa kuu dhacay maxaad la ooyeysaa maxay hooyana kuu soo garaacday adigoo xiisada ku jira. Markaasay ku tiri hooyadee waxay leedahay xasaasiyad waxayna u baahataa kiniinaya inaan dhakhtarkiino. Aabbana waa uu maqan yahay oo shaqadii ayuu ku maqan yahay iminkana kaydeed ayaan kaga yimid gurigii. Markaasay ardaydii misaacii u ururiyeen ay ku yidhaahdeen hooyada kiniini ugu sii iibi cuntana sii iibso. Markaasay ku tiri saaxiib aad ayaad u mahadsantihiin wayna u mahad celisay. Markay xiisadii dhammaatay gabadhii waxay tagtay farmasigii waxayna u soo raadisay hooyadeed kiniinkay u baahnayd. Kiniinkii markii soo hashay ninkii ayaa dul tagtay ku tiri kiniinka ayaan u baahanahay muu yaalaa. Markaasuu isaguna ku yidhi haa waa uu yaalaa ee orod halkaaga soo qaado. Markay soo qaaday lacagtii u dhiibtay ayuu ku yidhi lacagtan iyo kiniinkan had qaadato isku mid maaha kiniinka waa originaal lacagta soo kordhi. Iduna waxay ku tiri lacag kale maayo waxaad samaysaa kiniinka ii googo oo xabaduna isii waayo waxaa rabaa inaa inta kale cunto u sii siiyo. Isagii wuxuu ku yidhi maya wax lagu siinaya ma jirto lacag lagaa qaybinayana ma jirto waxa samaysaa ama wada bixi ama kiniinka meeshiisa ku celi. Gabadhii markii dambe kiniinkii meeshii waxay ku celisay wayna iskaga soo baxday meeshii. Hooyadeedna cuntadii waa u tiibisay waxay ku tiri hooyo kiniinkii buu ii gaari waayey laakiin cunto waa kuu soo iibiyey ka kac meesha oo kaale cuntada cun kiniinkana waa soo iibin doonaaye. Islaantii hooyadeed markii dambe waxay ku tiri hablaayo xiimo ayaa soo noqotay oo lacagtan halkee ayaad ka keentay lacagtan aad haysatid aad cuntadan ugu soo iibisay. Markaasay ku tiri hooyo asxaabtaydii baa maqlay adigoo ila hadlaya musaacahowgii bayna igu ururiyeen igu yidhaahdeen lacagta kiniin iyo waxaa sii siisataa cuntayna mark. Taaseedii aadna way ugu kacsanayn minaynay hadlayn cuntadii markii cuntayna waa istuugtay. Habeenkii oo dhan gabadhii baa u soo jeeday. Aroortii markii meeshii ku noqotay ay gabdhihii uga sheekaysay wax walba ku dhacay iyo inay sido lacagtii kiniinka. Gabdhihii markii dambe waxay moodeen inay iyada cudurdaar samaysanayso. Markaasay ku yidhaahdeen iminka lacagtii maxaa ka dhiman kiniinka han iibine. Markaasay ku tiri kiniinkanii ma raba inaan u iibiyo ee waxaa rabaa inaan dhakhtarna soo tuso ee maxaad ka qabtay. Gabdhihii waxay ku yidhaahdeen lacagteedii hore masi waanu ku fahamsanay markiiba inaad doonaysid inaad naga xadid lacagtii. Gabadhii waxay lacag haysay waa ugu kala qaybisay gabdhihii waxayna ku tuhmeen inay tahay gabadh doonaysa in ay dadka xado. Markii ay soo rawaxday waxa ay soo rawaxday iyadoo niyad jabsan oo wax walba ka cabsoonaysa. Hooyadeed markay dul timidayna waxay aragtay inay hooyadeed ka sii dartay. Hooyadeedna waa ay la hadasho waxay ku tiri hooyo dhakhtar ayaan doonay in aan ku geeyo laakiin qadadii iyo maanta waxaan sidaaba ma jirto. Ardaydiina waxay moodayaan in aan been sheegayo. Islaantii waxay ku tiri gabadhaydii yareeday waxba ha iska dheedin ee iska fadhiiso. Gabadhii markii dambe il daraaddeed ayay gurigii iskaga soo baxday waxaana iska soo ag fadhiisatay geed waayo waxay ahayd
qof ay ardaydoo dhan ku kalsoon yihiin oo wax walbana u dhiibtaan. Waxayna tiri, waxaa laga yaabaa inay daruuftayda ay ardaydan tusto inaan ahay qof mar walba ku danaysanaya. Laakiin anigu sidaa ma ihi, hooyo maanta waxaa ku kacsan xasaasiyad aad u weyn. Aabana intuu shaqada ka soo noqonaya wuu imanayaa waa waqti dheer. Cidkii hoosteediina way koowaysay. In fara badanna waxay ka fikiraysay waxa ay samaynayso. Markii dambe waxaa soo daba istaagtay boqorad aad u qurux badan oo qosleysa. Waxayna ku tiri, xilligan maxaa ka dhigay halkan kuu dhigay kulaylada? Aad u geli weyday guriga. Dadkoo dhan qof jooga ma jirto dibadda. Markaasay gabadhii iyadoo yaaban oo eegaysa ayay markii dambe waxay ku tiri, waxay dhigay waxaan ahaa qof dadkoo dhan ay ka amar qaataan oo aadna loo aaminsan yahay. Laakiin intii way xanuunsatayba oo aadan maqan yahayna dadkii oo dhan waxay iga qaateen inaan ahaa qof danaysanaya. Kaasay ku tiri, hooyada adiga maxaa ku dhacay? Aabana muxuu la iman laayay oo halkee ayuu aabba ku maqan yahay? Gabadhii waxay ku tiri, aabba meel fog ayuu ka shaqeeyaa, bishiina mar ayuu noo imaadaa. Waxna laga yaabaa inuuna imika imaneen, anagana lacag noomay hadhin. Ardaydiina waxay moodayeen in aan hadayo, kiniinkii hooyana waa aan goyn kari waayey. Abtan waxayna kaga dhamaatay intii hooyo xanuunsanaysay wax walba dibadda ayaan ka soo iibinaya. Gabadhii kiniinkii waa isiisay waxay ku tiri, kiniinka qaado wuu ku gaadhsiin doonaa intuu aabbo uu maqan yahay. Markaasay ku tiri, hooyadii waxaa laga yaabaa in ay caafimaado, aad baanad u mahadsan tahay. Kiniinkii waa ay soo qaadatay gabadhii, hooyadna waa ay ku soo noqotay. Markay u soo gashay ay ku tiri, hooyo, kiniinkan oo meesha ka kac. Cuntana waa kuu soo iibin oo meelahaasan ka soo raadin lacage. Ilaanta biyihii ayay